shalom kulligiin waxaan ku salaanay magaca rabbigeena iyo badbaadina Ciise Masiix ku soo dhawaada Somali Christian TV waxaanu nahay lamaanaha ugu jeclaan ex muslimka ee faafiya masiixiyada ka shafana qaladaad kasta haddaan ugu cusubtiin fadlan subscribe ku sameeyo channelkeena oo ku soo biira Somali Christian TV bahda Somali Christian TV waxaan nahay aad iyo aad badan idin jecel oo mar walba idin soo gudbiyo jacaylka uu Ilaah idin qabo waa anigoo Shaani Gaabo iyo ninkay Shiina Gaabo dhamaantiin soo dhawaada يا سود وهذا ما لديك جعلي هاي وحي نقدر عنا إن دخل بدأ له نوريو سو وجانا وحي تهرج ذي يرسيسه نمعذا ربنا عيسى مسيحنا هاي دي كبضته ميل بقى تنبأ موضوعنا ما تروح حساب سيها كل الجناو إله يس وحلاقي بعد تقارن يكون فكرة شاني سائله لو قد جنانا يا كل الجناو إله وحوايه حب دبي عذا حاجة تنبأ هذا نكون إله كحرن حب رقمات كاجا هذا كو إله كحرن تدني ما هذا تنبأ هذا من إله كحرن إله هذا ماشي أديك أو حكسو قادنا كم جامين إنه هذا وسيد تصالحان فيرم عنق يرات هذا المير كم ركب بدبت صباحان أبوه أم هو يدود عنده ده كل جيهين سياسا مالك لا تقدرفتين أما أودقاقن أما أوردن حتى سأكفن حتى مركو عنق أبيس أم هو يزق عنده هستنا ديرنا وين أكو جرتا صح وحنا حسست المير وعنق أبيس عنده كويس عنق لا دو أركو وحواي وحو إسليه يا أبيه الله سبحانه يفير صح وحواي أنا وح يسوق دوان كرمالها أنا وح يقعد سين كرمالها أنا هنجر نبسس أنا لفتر كي بس هنجر بعيال السوق حافظ الجو جيران كبق جيران كان يرى لكن مركو إذا ما أبيه إلى السعودان أو قعنت لي هايو runtii ma baqi jirin waayo waxaan saraha hadda soo maraa xitaa meesha ma ka baqay waayo waxa la socdo waalidkii la socdo wayday la socdo abay la socdo ma fahanto walaalka weyn dad kula socdo kale ma baqaysa laakiin marka kaliya tahay waa baqaysa waa soo arkay aniga laftirkeyga exactly sida daraadeed waxaan leenahay marka oo ilaahay naftii uu leeyahay war aniga u dhiganaada ana idin abuuray ana idin garanaayo ana wax wanaagsan wax idin wanaagsan idin garanaayo wax idin xun idin garanaayo aniga ugu dhiganaada ana wadada idin noqonaayo ana jidka idin noqonaayo ana indha idin noqonaayo ana iftiin idin noqonaayo ana ugu dhiganaada marka qof walba ilaah isku haleeya kaas waa kan ilaah ku dhigan qof walba ilaah ka shidaal qaata kaas waa kan ilaah ku dhigan ilaahna laftigii ayaana dhahay marka war aniga ugu dhiganaada marka tusaale fiican ayaa ku jira Bible-ka ama kitaabka Quduuska Injiilka waxaan noo akrinaynaa aayado ku jira maartay Yohana 15 oo tusaale fiican rabbi oo nagu siinayo in hadii anaga asaga aan ku dhiganaano aan noqonaano kuwa mar badan dhala aan noqonayno kuwa noloshooda wanaagsanaata aan noqonayno kuwa farxsan aan noqonayno kuwa nabad haysta aan noqonayno kuwa maartay wanaaga waxaas dhan rabbiga ayaa inoo ballan qaaday inay noo ahaanayso laakiin waxa la rabaa marka hore in asaga aan ku dhiganaano marka isku dhibna aan ku dhiganaano sax Yohana 15 aayada 1 ilaa 7 waxay leedahay anigu waxaan ahay buu leeyahay Rabbi Ciise Masiix baa hadlaya anigu waxaan ahay geedka canabka ah oo runta ah ayuu leeyahay aabahayna waa beerfalaha waa Ilaahay laan walba oo igu taal oo aan miro dhalin wuu gooyaa oo mid kasta oo aan miro dhalina ayuu nadiifiyaa si ay miro ku sii badan u dhasho miro ku sii badan si ay u dhasho durba waad nadiifsantihiin hadalkan idinkula hadlay daraadiisa igu jira anna aan idinku jire sida laantu keligeed aanan miro u dhali karin haddaanan geedka canabka ah ku oolin sida oo kale idinkuna ma dhali kartaan haddaydan igu jirin anaa ah geedka canabka ayuu leeyahay Rabbi Ciise Masiix waa geedka canabka ah anaa ah geedka canabka idinkuna waxaad tihiin laamihii kii igu jira oo aan ku jiro kaasaa miro badan dhala maxaa yeelay la'aantay waxba la'aantayda waxba ma samayn kartaan qof uun hadduusan igu jirin waxaa loo tuuraa sida laan oo kale oo waana qalalaa markaasaa la ururiyaa oo dabkaa lagu tuuraa oo lagu gubaa haddaad igu jirtaan oo erayadayda idinku jiraan weydiista waxaad doonaysaan وانا ليدين يلي دونا عشر كان وعشر آدي أد بدن أقيم بدن وبدن أكو جرمشان اسم سيحوا لي أنيجا وحان هاي محيط جيت يا هيولي تسال عن جيت كعنبك جيت كعنبك وجيت كوم معان ومرها وتسال سوقه واحد فهمين لو شيء فهم يصير لو شيء حد ما أنت دين لو شيء وحال إلى أنا وحان هاي محيط لابتوب أما إنترنت أما المها كله دلو شيء كل جيم وحسوا لو شيء لا جيت كوم معنا حال جودا دتك واجه روحي عن بيرفلت هاين وحي فهمين لو شيء جيت كوم معنا ومرها وعنبك أي وحول عيسى مسيح أنا وحان جيت كعنبك إذن كانوا حاتين لامه
aabahayna waa beerfalaha oo beerfalaha muxuu sameeyaa geedka wixii ka go'o ka daato oo qalalo dhahay intuu soo qaado dabka ku tuuraayo dhahay nacam kii isaga ani igu dhagan badbaadayo oo miro badan dhalayo oo la gogoyna oo la nadiifina oo la waraabina oo la hayna kii kale oo ani igu dhaganeen dhulku ku dhacayba dhulka ku dhacan dab kale lagu tuuraa ama qashinka ama dadka ku soconay ilaahay tusaalo nasiino rabbigeena ciise masiix inuu leeyahay wuxuu leeyahay aniga la'aantay waxa ma tihiin laakiin aniga hadaa igu jirtaan miro badan dhalaysan waxa lagu wadaa noloshaada isbedel weyn ku dhacay adiga dadka gaarka xitaa way ku garanayaan xitaa qof oo masiixi cusub maanta daa aragtid sida hore ma aha dabeecadiisa isbedeshay jacayl naxariis qalbi qaboojis cafis sabir wax badana kugu soo saa'ida waxa soo dhan waxa ka helaysaa ciise masiix marka ku dhagan tahay oo ay haysatid waa ruuxa quduuska ku tababarayo ku nadiifinayo marka saalo wanaagsan waa tusaale aad wanaagsan marka geedkan canabka qof walba uu og yahay maarta wanaagiisa iyo ficnaantiisa haddii adna ku dhagan tahay macnaha wax waa ficnaan iyo wanaag un baadna haystaa xagee ka shidaal qaadanaysaa oo marka waxa ka shidaal qaadanaysaa wax waaye waa erigi ilaah geedkii wanaagsanaa wax waaye ciise masiix hadaa ku dhagan tahay oo asaga ka shidaal qaadanaysid shidaalkaaga wuxuu noqonaa shidaal aad u wanaagsan dabeecadahaaga noloshaada iyo qaabkaaga dadnimadaada wax dhan waa wanaagsanaanayaan waayo ilaah anaga na abuuray isaga inoo yaqaan wax walba inoo wanaagsan marka asaga ka soo shidaal qaadato waxa noqonaysaa shidaalkaaga dadka badan inay ka faa'iideysanayaan waxay noqonayaan dad badan inay maartay harsanayaan inay dad badan maartay waayo waxa lagu leeyahay idinku waxa tiima marka qaarkood leeyahay kuwa nabadda ka shaqeeya idinku waxaa tihiin kuwa ilaah jecel yahay idinku waxaa tihiin waxyaabo badan baa ku jira oo kuwa masiixa rumaystay ay ahaanayaan adna iskama ahaan karaysid ilaa ku dhiganta isaga mahane waayo ereyadii aad ka maqashay isaga ayaa dadku gudbinaysaa dabeecadii isaga aad ka baratay ayaa ku dhaqmaysaa adna oo ku soconaysaa marka haddaa igu jirtaan oo ereyadaaduna idinku jiraan baa leeyahay wax kastoo aad weydiistaanna waa idin ahaanaysaa ballanqaadka la fiiri marka wiilkii ilmihii haddaa aan soo sheegno oo kaleeta gacmaha aabood haysta ama ku dhigan ayagoo wadada maray haddii arkaan wax wanaagsan oo manaha yeela aabbo waxaan ii gad hadduu yidhaahdo aabbihii wuu u gadayaa ilmihii hooyo waxaan ii qaba hooyadii u samaynaysaa oo cunugeedii oo la socday waa meel kale u cararto meel kale u baxdo midna malaha kalsooni ayay ku haystaa ama uu ku haystaa aabihiis hooyadiis inuu la joogo marka ku dheganaashaha aabbaha aan ku dheganahay ama ku dheganaashaha ereyga ilaah aan ku dheganahay ku dheganaashaha ciise masiix aan ku dheganahay annaga faa'iido ku qabno wax waaye dan weyn noogu jirta exactly marka waxaa la rabaa inaan mar walba ku dheganaano ciise masiix inaan ereyga ilaah aan qaadano markaan rumaysano aan ku dheganaano kadibna ereyada haddii idinku jiraan baa leeyahay ereyadii ayaa ku qaabeynaya ku habeynaya hadda waxaan aragnaa dad badan oo marka anagoo live ku jirna ama siyaabo kale telefoon soo wacayo ayagoo caytamaayo ayagoo habaartamaayo ayagoo raba inay ku dilaan ayagoo raba xumaan inay kugu sameeyaan annaga intaas uguma jawaabno waxay ayaga ay kasbadeen laakiin waan wanaajinaa waxaan siinaa nimco waayo shidaalka aan qaadanay ma aha shidaalkooda oo kaleeta ee wasaqda ah ama shaydaanka kiisa waxaan qaadanay shidaal aad u wanaagsan oo ah shidaal aad u wanaagsan rabbi aan ka soo qaadana waa manaafacaad wanaagsan heriyadii aan ugu bedinaa duco waxaan nirahnaa waxa kugu jira oo ku dhibaayo waa shaydaan waxaan ilaah kaa baryaa shaydaankaas inuu kaa bixiyo xumaan haddaa dadka alla damacsan tahay xumaantaas adiga kugu soo noqonina xumaantaas ilaah kaa bixiyo marka kitaabkeeda waxaa ku qoran xumaan ha ku gudina laakiin xumaanta wanaag kaga adkaada taasi waxaa heli kara oo keliya qofka masiixa ku dhegan waayo waxbaridda rabbiga ayaa sidaa ah wuxuu leeyahay idinku kuwayga ayaa tihiin kuwaygana sida aniga aan ahaanayaan ilaah dadkiis wuu jecel yahay annaga waxaan leeyahay marka xataa cadowgiina jeclaada qofkan la rabo inuu na dilo ama na xumeeyo waa inaan u muujinaa jecelka ilaah markaasaa waxaa la yidhi dhimbilo kulul ayaa madaxiisa aad ku shubtay haddii cadowgaaga hadduu gaajaysan yahay aad cunto siiso hadduu haraadsan yahayna aad biyo aad siiso marka waxa waa kala duwanaan ayaa jirta meeshaan ku walba oo ku dhegan ciise masiix waa la dareemayaa habdhaqameedkiisa habnoloodkiisa iyo sidaas uu dhaqmaayo waayo ereyga ilaah haddii uu adiga uu ku yimaado oo lagu leeyahay ereyga uu kugu sii jiro waxaad doonta weydiiso waa lagu siinayaa waxaa weydiisanaysaa kasoo qaad qofan waxaa tahay dabeecadiisa ay xun tahay ilaahu dabeecadeeda wanaaji in sabarkaaga uu xun yahay sabarkayga badi rabbiyo in maaragtay deganaashalaan haystid deganaashayga ilaahu sii waayo wuxuu yidhi waxay weydiistaan waa idin siinaya hadda anigu ereyga ku dheganaado marka weydiista waxaad doonaysaan waxaad doonaysaanba waa lidin yeeri doona waxaa ka wanaagsan maanta ka war haddaa wax walbo ilaah weydiista uu ku dhaha haye uu ku dhaha amiin ku dhaho uu ku ogolaado ka war ya sida daashiina sheegay ilmihi banaanka wada aaba jalaati igad waa loo gadaa dharkan igad waa loo gadaa kabaha igad waa loo gadaa katiinadan igad waa loo gadaa sacdan igad waa mayo ma jirto wax walba ha ka waran ilaahayga cirka dhulka samaystay ayaa wuxuu ku leeyahay hadda aniga igu jirto ciise masiix haddaa aaminto wuxuu ku leeyahay wax walba weydiista waa lidin yeelaya wax kasta oo weydiisataan
والعافمات هذا وباهنت إله ويديسو كسينايا قور هذا وباهنت ويديسو ilma hada u baahanta weydiiso saaxiib hada u baahanta weydiiso hadii ka xanuunsan qof weydiiso inuu Ilaah ku caafiyo shaqo hada u baahanta weydiiso hadii dabeecadaada xunta xitaa dabeecad fiican inuu Ilaah ku sii weydiiso oo waxa dhan ka nadiifiyo Ilaah inuu ku hogaamiyo oo golaaw oo isaga isku dhaji marka caleen ku dhigan atahay caleenta kama ordo geed laanta kama ordo geedku ku dhigan tahay shino ya miraha markay dhalaysana ma aha dhibaato meel u soo martay ma aha qaylay oo ma jirto naag cunug dhalayso kale ma aha si fudud ay ku heshaa ku dhashaa mirahan dhalay la sheega waxa waaye dabeecadeena isbedelayso dabeecadaada masiixa noqonaysa sida masiixa noqonaysa waayo waxa waaye hadda qof ka shaqeynaa kala shiino maxay ka shaqeynaa meel barfuunka lagu gado oo kanaal isku fiiran kanaal isku meesha dhan waa carfaysa qofka markuu soo baxo guriga ma qof kasta soo gal sanka carf ordis markuu maraa waa carfa adi marka ka baxday shaqadaas oo aad tagtay gurigaaga adoo soo kama tagsa carfay barfuunadii oo dhan korkaaga maanta ka shaqeeyay meel carfa ka timid ka warna hada ka imaan meel qurun ah ka soo shaqeeyay boosaneera ah guriga uraaya tagi lahayd farmuunka sanka laga qabsan lahaa waxa waaye marka masiixa ku jirtid عرفتها على أركان إنجيل كوحبل دوام السيد عرفه كلالي دبيعة هذا اسمه قف أو بين شيء جردات بين دم مشي هذا حمان كل كجرت حمان تسوى كابحة هذه اللي بعتكوا إله ويديسن إله يقرقات دبيعة هذا والبدل روح القدوس كهستا السجا كل جنت مرها كائمانا وحواي أديك عرف صعتان قنسا قفك أجمرت بحلا كان قلبي يقبوجيا كان محي قبلنا وقلبي في عنتا الله محي نيد يقول والسماء يقبوجس أنا بهنا وحسيس أنا والسنة إدجسي أنا طلق بهن طلق سيسي أنا محيط وحن نقنسا كان وضد جبان لسان نقنسا لكن مركات هذا ربي كل جنين هذيك عم تعب على نجفتي أو لو كرستاجي أو كده من ذبك الوطورة الشيطان كيسكر عادي والشيطان كوركيسة وكفين لا الشيطان كمحوك براء وحن إلى سمس إنا عاسي نقطة إنا وحن سمس إنا وحن الله رالك هن معسير كل إحدى عدد قمر إسكب الست إنا دراجس وحس إله كم إيمان والشيء كذا الشيطان كواي آخر كلام حسمينا وجوء إلهي سأوقف على أنت ويقل الشيء لا أنت ويقل الشيء ويجوء سامرك جودن لوك يكون عسى لوك مرك يكون عند سلسلة وكرت منك بعد دبك على الوتورة وحلو الشيطان مرك وده بس مركو إله كافوجي كيت قلنا لك هذا تشو أنتوا كايسة وحقول إزدلوا كله كبعد العذاب أسير راعسة أسير راعسة مركب ولا عليه وحسوا وحو إلهي ونوجد جاي ولا كسوف هذا أنا جي ماذا أنا جي يقول لك أنا جي أنت وحمتين لكن أنا مركب عندنا الصعود أود وين الذي هنو لي ربنا مرب بدنا للسين وحنقول نسان عرف وحنقول تذكرنا ونقول نسان بركة إذن كبركة نفتينا ونقول نفت هذا إلى النساء نفت هذا كوم مسؤول كته نفت هذا إلى النساء نفت هذا محيط إله كحرسة نفت هذا أون حرسنسا ويحوم كريبس ويفي عنه كل ما واي وحاسته وود إلهي حاسته أو كل هاي ويحوم أكون ذكرت مايا ويحوم نفسنا أكون ذكرتها ها أكون لكن مركب مسيحة هيسن أود ما هيست لما ملنكم محرن لكن مركب مسيحة كل جنتاي وعلانت لانت تهاي أصلاً جيت كيها إلهي نبي كيكو أبو رؤية ويحدن اسكود إلهي هذا الكيس محيك لين أنا عد كي هذا محنك الله ماذا اسكتين عيسى مسيحي هذا الكي إله هو عيسى مسيحي إله حال حب يسكيه وهذا الكي إله كسر بحي هذا كل جنتاي إله بلنقات كيسوا عيسى مسيح هذا تقبست عيسى مسيح كل جنت إله كل جنته هذا الكيس جديد إله كوعسي ودواي إله في رياشينه تكون حيلهان المهم هدي أبار بتاعنا نقطة مركي مقال أداء هذا الكي مقال وكذا إله درت إن أبار ونقطة أو مربنا الشيء أو بركود هذا الكيس كله كوعيس مسيح هذا الكيس جديد هذا الشيطان كراعي سوانا جبنا سوانا ججاب ساسلا بواي وكل بحين وحكى الجرا مله وحراعيسا كل جنانيسا إله كل جنانيسا هدي هذا إله كل جنين أما إله هذا لسه عنين وحصعته مال قلده أنا واحد باتي كل كنيسة مركا هدي أتعرف إله كل جن وحوجاتها إله وحكى الدم وكاليه دنت وليه أنا وحيتها مربضا إنها رشوا إن دنيا أنا معرت أكبر واقوده دنيا معرت تصالح في أنا أقول نقطة دنيا أكود ضياته كدمنا آخرنا الجنة أيكون بلان قاعدة مركب وحنا آخرنا يتصلون كذا كود عتب كيس أفراد أيدا سدح إلى الله بيتون أو نو موجنا إله إنوسن مركب نو ياري أو أنا إيمان أصلا أكون الجنة هاي وحربا إنا أهانه كوا إذا بله أصعد فير المية راشان يدام أو تصالح سقاطه وقعت لها يا سعودي عنك أنتوا أبيس كل جيء نم وحول عنك بهذينا واحد هو يسرع سوق روح بدنا وصعدا عبيان للصعدا
وحوا وحو موجنايا إذا بموجنايا وحو موجنايا أبيس إنه يه أبو وناكسن مع مت مال كل بس كتر تورا قدرك عيناي قدرك أفلقادينا سمعنا حتى مسمعنا وهو يا أبيه وكحشونه يا أبيه وضع مركو حوا إسئلالنا وناكسيا سيابا وحيتها إلى مركو أنا ما عرفت دبدا وصبحنا oo aan ku isoo ku dayanaya wuxuu muuqaalkiisa inaan dad kale anaga u muujino marka aqrina ayadaan ogaada in ilaahay uu rabo kuwiisa inay quduusin ahaadaan si dad kale tan ugu daydaan dad kale tan faa'iido u keenan haleluya Thessalonika kuwaad cutubka afraad aayada 3 ilaa 12 maxaa yeelay doonista ilaahay waxa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sino ka fogaataan in midkiin kastaba garto sidoo walaalkiis ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuusnaan mana aha inuu hamada damaca xumaanta ah ku socdo sida dadka aan ilaah aqoonin inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalka ku xumaynin maxaa yeelay rabbigu waa mid ka aarguta waxyaalaha oo dhan sidaas mar kale kaga digay in idinkii idinku sii sheegay waayo ilaah wasaqnimo inooguma yeerin laakiin wuxuu inoogu yeeray quduusnaan intaas waa intaan u soo socday oo la raadinayay wax waa ilaah ku anaga noo yeertay oo aan ku dhaganahay muusan noogu yeerin marka asagu imaanay inaan wasaqin iska ahaano ama xumaan aan samayno si dadka qaarkood ay yiraahdaan war masiixi ma noqotena waxa rabtaan waxa doontaan iska sameeya waxa doontaan ma sameeynis ilaah yeeristiisa ayaa waxay tahayba quduusnaan وسقنا مرن إنك فوقاتد أو أحد قدوس واكي قدوس مركا إله قدوس هذا قدوس ما كذا إسحاق قدوس كذا هذا لان جيت كي أكون جنات أو لان تأذيك أتاي قدوس لان تحقق سكسوق هذا نيسان وارن أنا بني آدم أنا هاي جرك أنا آدمي أو حكوا ذجرو حمان فلت نبى كل حاجة لكن وحكا أود بدل روح حد قدوس كإله أو نبريسا إن مارت ديننا وحيحن أو قالنا وحي في عن مركز روح القدوس كإله بقى إسكاله وهدية بن آدمك رميستي عيسى مسيح اللي سيء ونقدان قوة رقم وراسي إله وترجله وهرك إله وحوليه أنا وصغنا ما إذا كوميرين لكن واحد كوياري إن إذا قدوس آتان سيدا أنا عن سماد القدوس وهاي بارو كوه يجنا الدنيا القدوسين كوه هذان مركز إله أكتس سوق قصران بجرته ما سوق قص كرتي وحيابها إله وحيابها شيطانك إله أقعدونتي إله هيسان يسا وكل جنان يسا مركا كل جنان علينا وحوا وحول وناكسن إن السمايسو إله وطلع دنيا إنها كسمايسو وحول بوحنا أكفوجاتد أو إله وسربين إن أديك على السمايسو حماتنا كيفوجاو جعل إله وقبت أودد ونقدر السماء جعل إله وقبت أودد وحنا ساقف إسبدل وين وكو إماضي موجناينا إنه إله كل جنياي ودك مركا كو أركان وحال رأينا أركان أو إفهمان أو إجرتان إله أديك أموري إنه أديك كل جرو أو كل صعده سي أودد وحال رأي شغل الذين وناكسن إن أديك مقدام بالدنيا يكون مسيحين تاع سي أديك أركان إن أديك أتينكو ربك كدبنا مركز أديك أديك دايدان أما إيه ربوضان وحدك مسنتين سي أي وأمانة أنا مانتنا وهاتو إلهنا سمد كجرا صاحب ما دام مسيحي أنا أبتركي أنا يأوجينا وحوا مسيحي ما مقلنا من كل هبل وأرهر هبل بكل الشيء ونكسرير هبل بعبية الأولى أدو ربي لما إلهي يعرك لك السماء أياتكو أبترسان سا أبكو أديك وحتى بقرتوي دي إله إياه وحاقتها محلها إرجعتها أو الدنيا أو جوكتها إرجع قفك أول صدر وين وحو ناكسن وكشيء عمش وكإما هذا إسقنا لقى أركا وناجي إذا بلقى أركا وناجس إذا بتحسن وحلقها لا ربي جانا عيسى مسيح وحبها هنتين كلي إن التوبة كانتان وأعقبش عيسى مسيح ده عيسى مسيح يسنن وحنا نمهل كرتد منو كنا جنان كرتد منا هل كرتد بتبادة وهي وحكة لو بتبادة ملا إله هذا الكيس لو بتبادة هذا الكإله ما رتا إن عقبشان أدي عدان مانتا هدي حتى هاي وحبها هنتين قلبي كل مسنا أفكنا كغرتان وحاسمين سو ودعاءنا دعينا هذا يقدر بآخر هدي أدقو أنستي إن أد مسيح رعدت ومسيح نقطت وأد نقطة مت كل جن عيسى مسيح مرب بدن لا مت كل جن هذا جيت كعنف كل جن هذا عيسى مسيح كل جن هذا وبتبعد هدرتنا وحتى ربي إلهي ما أنتم كنتوا بتكينيا وحن قلبي كرمسان أفكنا كقرنا عيسى مسيح وناتاي ربي جيجا يبد بعدي هيجا ربي عيسى وروح حاجة قدوس كهاي هو جامية ما أنت لقى بلعب إلا يولي جيب النولش هذا أنت أنا حكوا دعاء السلام مجا ربي جيجا يبد بعدي هيجا عيسى مسيح آمين دعاء هذا آخر سوال على الكسر لو بقرتوي إلهي وإلهي أي كويري دن أي كالي هاي وكجعلي هاي وحربا إنك بدبادي وحربا إن سكر دجناتي وحربا إن بركة ونقطة ذاتك كله إن نفط هذا بركة ونقطة إن قدوس هات
dhulku aadso isaga jannada quduus ugu yahay wuxuu rabaa ruuxiisa quduuska inuu ku siiyo si aad u yeelatay awoodda aad ku noqon lahayd quduus awoodda aad xumaanta uga fogaan lahayd wanaagana aad u samayn lahayd intaa haddaad samaysay boqortooyada jannada maanta waa lagaaga dabaaldegayaa ilaahay iyo malaa'igihiisa ayaa ku dabaaldegaya kusoo dhawaa familka ilaahay ayaan ku leenahay go'aan wanaagsan ayaa gaartay waayo la'aantiisa waxba ma lihin laakiin isaga haddaan ku dhegannahay waxbaa noqonaynaa waana badbaadaynaa yaa miro badanaa dhaleen ya amiin kuwa rabbiga raacay marka rabbigu wuxuu leeyahay aniga ayaa ii tihiin nuur waayo dunidan ayaan joognaa dunidan aan joogno kuwa rabbiga rumaysay rabbiga ku dhegan waxay noqon doonaa kuwa dad kaleeto u iftiimiya wadada u iftiimiya waxaa taa ka soo qaad dad meel mugdi ay lagu jiro adiga toosh haysatid keligaa toosh haysatid tooshkaasi dadkan soo wada raacayaan iftiinkaas soo wada raadinayaan kulligoodba inay adiga ku soo raacaan waayo adiga iftiinka haya iftiin baa u noqonaysaa rabbiga waxaan rabaa inaa ahaatay sida caruurta nuurka ahaanaysaan baa laleeyahay marka rabbiga dana ayuu ka leeyahay kuwiisa asaga uu hogaamiyo kuwa asaga uu raaco marka shaaniya noo aqre Efesos cutubka 5 aayadaha 8 ilaa 14 si ma aragtay aan u ahaano kuwa rabbiga oo noogu tagal marka asaga ku dheganahay kuwa anaga aan nahay ina garataan ayaa wanaagsan si idinkana ugu dhigtaan kuwa aan ku dheganayn rabbiga ama aan rumaysan wili si ay u rumaystaan ay ugu dheganaadaan haatan se waxaa rabbiga ku tihiin nuur haddaba u socda sida caruurta nuurka waayo maxaa la miraha nuurka waxay ku wada jiraan wanaag iyo xaqnimo iyo run oo dhan tijaabiya waxaa rabbiga aad ugu farxo oo inaba xiriir hala yeelanayna shuqulada aan miraha lahayn oo ah gudcurka laakiinse kashifa fiiri ciise masiix haddii aadan ku jirin waxaa tahay gudcur qof ku socdaa tahay laba wadaa jirto wadada iftiin iyo maalin habeen mise dhex geli kartaa iftiin iyo waxay kala tahay iyo mugdiga kala tahay mugdiga waa shaydaanka sheekadiisa shuqulada aan miraha lahayn shuqulada miraha xun leh oo miraha dhimashada leh oo miraha saqjaanka leh macsida leh xaasidnimada leh qabiilka leh sanabyo caabudka leh diimo kale oo daba orda leh maxay carabta la raaca ilaah laga dhigta dhagax loo sujuud laga dhiga waxaas oo wax ilaah ka yimid ma wax shuqulada shaydaanka waa ilaah wuxuu leeyahay kuwaas gudcurka ah kashifna annaga waxa intuu joogno wataan dhahayna ko waxaan nahay kuwa faafiya masiixa kashifana qaladaadka qaladad marka la arko waa inaa kashiftaa xumaanta waa inaad ka fogaataa xumaanta diinna lagu iftiinka markaa ku iftiimiso way kala cararayaan hadda tuuga haddaa aragtid oo kale tuugada habeenkii wax dhacaan maalimada waxay soo bixiyaan because iftiinka ka baqayan in la gartay ka baqayan kuwa wax dilaya wejiga duuduubanaya waa aragteen Soomaaliya kuwa wax qarxina wejiga iska duubanaya because waxay rabaan mugdi dhex galaan ku dhuntaan shuqul xunayna sameynayaan shuqulka shaydaanka sameynayaan shuqulka wanaagsan ilaah ka imaad ma sameynayaan shuqul xun oo shaydaan sameynayaan saas wejiga u dabooshan mirahoodana waa miro dhimasho weeyaan miro xun weeyaan anaga waa idinkaga yeereena anaga waxaan rabnaa inaan heshaan miraha rabbiga oo nuur kiisa qaadataan oo masiixa isaga ah nuurka dunida isaga iftiin ah mugdigana waa dulinimada iyo shaydaanka iyo shuqulkiisa waa waxaasoo dhan inta ka soo tagtaan daadisaan aad soo raacdaan rabbiga nool si aad u heshaan iftiinka awoodaa ladin siinaya iska daa zine rabbiga wuxuu yiri ninkii naag damac ahaan u eegaa qalbigiisu ka sinaystay already xumaan xitaa inaa fiirsatay filinsa qajaan looguma talagelin wuxuu nina jirkaa ku samaysa looguma talagelin adiga waxaa la rabaa inaa barako socoto noqotid dadka kalena aa barako u ahaatid oo injiilkan dadka ugu yeertay wanaagga iyo nimcada adigana ay ka arkaan ku dhahan waaw isbedelaa kugu dhacay mee qofaa hadda shiino masiixiyiin ah oo marqaati furkooda dadku maxay dhahaan hebel markuu masiixi noqdo isbedelaa ku dhacay dadka isma oga laakiin isbedela kugu dhacay kii hore ma tiid waayo ilaah wuxuu ku siinaa ruuxiisa quduuska wuxuu ku siinaa nuurkiisa magaaladii dhan waxa u tahay iftiin adaa u noqonay nuuraa u tahay cusbaa u tahay nololaa u tahay waayo nolosha rabbiga ka soo qaadatay aad dadkan siinaysaa laakiin markaad dhimasho wadatid dadkan dhimasho la u ahaanaysa qof qalbi jabsan dadku qalbi jabina laakiin qalbigii faraxsan dadkan agtiisa joogo uu farxad u gelinaya samaashino sax waaye farxadan waa ciise masiix aamin waxa jiro marka gudcur iyo waxay shaani hadda ka sheekaysay oo noo tataabatay iftiin sax ilaah waa nuurka shaydaanka meeshiisana waa gudcur waa mugdi annagu waan ka soo baxnay mugdiga waan ka soo baxnay waxaan helnay iftiinkaas baan rabnaa inaan ku iftiimino dadka mugdiga ku jira gudcurkaas aan u iftiimino si dadku ay u arkaan shuqulada qaldan ay sameynayaan kadibna ay iftiinka ay u yimaadaan waayo ciise masiix wuxuu yiri Yuxanna cutubkiisa 8 aayad 12 anigu waxaan ahay iftiinka dunida kii walba anigu soo raacaa weliga gudcur ku socon doono wuxuu salahan doonaa iftiinka nolosha haddaba maxaa dhacay qofkii masiixa soo raacay ku dhagan masiixa ballanqaad buu sameeyay wuxuu yiri idinkuna kuwa ku asgar meestay waxaatiin iftiin marka shaaniga noo aqri Matthias cutubka 5 aayada 13 ilaa
أفرت مريا إلا اللحية طبعا يا idinku waxaad tihiin cusbadii dhulka laakiin haddii cusbadu dhadhan beesho maxaa lagu cusbaynayaa dabadeed wax tari mayso in dibadda loo tuuro oo dadku ku tunto maahe idinku waxaad tihiin iftiinkii dunida magaalo buur ku taala ma qarsoomi karto ilays looma shido in la hoosgeliyo weel laakiin waxaa la saaraa meesha ilayska oo wuxuu iftiimiyaa kuwa guriga ku jiro oo dhan sidaa oo kale iftiinkiinu dadka hortiisa ha ka iftiimo si ay shuquladiina wanaagsan u arkaan oo ay aabihiina jannada ku jiraa u ammaanaan meesha saasaa laleeyahay adiga waxaa lagu dhaha faynuusta anaga Soomaali markaan joogo markaan yaraa waxaan xasuustaa mar faynuus aan haysan jirnay faynuusaha waxaa la samayn jiray meel koraal saari jir guriga dhan inuu iftiimiyo kitaabka sheegay ilayska wuxuu dhaha meel koraal saar nalkan hadda waa aragteen nalka meel hoose kuma jiro sartooseeda lama gelin nalka korkeenu ku dhagan yahay iftiin meesha dhan uu iftiiminaya sidaas oo kale faynuusta meel kale ilaa wuxuu leeyahay adiga ahba nalkii guriga iftiiminaya adiga xataa faynuusti guriga iftiiminaya adiga tooshki guriga iftiiminaya adiga cusbadii cuntada lagu daray lagu xawaajiyana lagu macaansana lagu dhanaansana haddii waxaas dhan aad cusbo dhadhan lahayn dhulka la dhigaa waa lagu tumanaa waa la jijibinaya nal aan shidnaynin oo mugdi ahna wax rabo ma leh mugdigii uu la mid yahay soo idinku wuxuu leeyahay ilaah iftiin ahaada idinka ahaada cusbadii dunida ahaada nalkii dunida ahaada dadka mugdiga ooga yeera dadka dhibaatada haysato oo maxay ahayd mugdiga iyo ku dhex jiro oo diinta qaldan lagu qunfulay ka nadiifiyo leeyahay waxaas u noqdo cusbo cuntaday cunayaan بلاش عناية دلع بلاش وبلاش عصبر الهين دلع بلاش ومعان لكن عصبر الآن دل الملح بلاش ونقنا عنتذي إلى وحلو حس أوجير ولا ما دام هذيك هش عنت معان هذيك أدقيت عنبك أكوحر أنت هذيك نولش كسو قاتل عيسى مسيح ولا لها لقيبسو dadka guriga kula jooga la qaybso ilmahaaga la qaybso noloshaada la qaybso dadka dhan gaarsii waxaa nasiib darro ah kuwa noqonaysa dadka qaar haddii ay noqdaan masiixi yaa marbaa waxaa maqlay qof masiixi ahaa oo masiixi noqday oo Soomaali ah oo markii dambe markuu dhintay kadib reerkiisa ogaadeen maba la ogeyn inuu masiixi yahay nasiib darro waay ilmihiisa kama warqabaan geedka canabka isaga la qaata iska qarsada ilaahay kuma dhihin saas iftiinkiisa isaga qaata iska qarsada iftiinkiisa isaga la qaata iska qarsada cusbadiisi waxa ma tarin marka dadkaagii kale waa nasiib darro ilaahay wuxuu rabaa guriga dhan inaa iftiimisay gurigaaga ka bilow dariskaaga ku xiji ehelka meesha ugu dambaysa waa ogahay meel qatar haddaad joogtaan naftiina qatarha ku tuurina oo naftiin banaanka soo dhiga meel hadda waxaa joogta Soomaaliya oo kale dadka jooga war shiica hadda la qoorta la goynaa firqa kale hadda noqdaan qoorta la goyn waa dila Christian iyo ATS iyo wax kale diimo kalena ma bal ogolaba iyo ilaah laabana iska badsiidaa warkiisa laakiin haddii aad jaanis heshid familkaaga rabbiga wuxuu ku leeyahay ka bilow gurigaaga dariskaaga ehelkaaga meesha ugu dambaysa anima maalinta masiixiga noqday ninkaygan ka bilaabay hooyaday walaalhay aan u sheegay saaxiibaday aan u sheegay xaafadda aan u sheegay kabacdina social media keenay ya kabacdina marka dadkayga waa badbaadeen inta badan ilaaha ma hadle inta dhiman ilaaha u baryaaya waa jeclahay inay wada badbaadana ilaaha uga baryaa masiixi noqdaan marka ina gaarsiino waa iftiinkaas dadka gaarsiino ma aha inaan qarsano iftiinka taalo dhahay dunu gudcur ahaan ku soconaa qofkan ilaahay haysan gudcur socdo indhoolo wada oo gud ku dhexdhacay waa ka gaar dadka ka gaar walaalayaal inta goorgoorta inta masiixiinta orda ka gaar ehelkiina ka bilaa walaalihiin dadkiina bixi awoodaan jaanisada haystaan meel nabada joogtaan aadan qofna aadan waxba uga baahnayn ama awoodi kartid dadkaaga la qaybso iyo qof kastaba la qaybsada oo u sheega dadka iftiinka inay adiga daawanay maanta daa wali mugdiga ku jirtina walaal hurdada ka kac iftiinki baa ku yimid ciise masiix baa ku yimid qalbiga kormaysa afkana ka qiro ciise masiix waad badbaadaysaa waxay helaysaa nolosha waligeeda waxay helaysaa iftiinka dunida waxay helaysaa rabbi ciise masiix aad noqonaysaa caruurtiisa miro ku dhagan geed ku dhagan ahaanaysaa laantaas ku dhagan la'aantiisa waxba ma aha adduunkan laakiin ciise masiix markaan ku dhagannahay wax badan aa qaban kartaa marka saasaa idin leena walaalayaal toobadkeena ka soo baxa quraafaadka iyo mugdiga u kaaleeya runta iyo jidka iyo jannada oo ah ciise masiix si ay u badbaadaan u noqotaan iftiinka dunida sax waaye waa saas waaye rabbigaana mahad iska leh ku dheganaada rabbigaana ciise masiix ku dheganaada ilaah ku dheganaada saa mir badan u dhashaan saa iftiinka u noqotaan dad kale tan iftiin u gaarsiisaan marka barnaamij aad wanaagsan oo ahaa si fiican u sii daawo walaalaha kale tan la sii wadaag si ayagana maartay ay iftiinka dunida ay u noqdaan cusbada dunida u noqdaan si dad badan badbaado u helaan waayo ilaah wuxuu doonay dadka inay wada yimaadaan jannada wada yimaadaan marka waxay noogu duceynayaa nimcada rabbigan ciise masiix iyo jacaylka ilaah iyo weheltinimada ruuxa quduuska dhamaanteen nala wada jirto magaca aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska aad badan ayaa idin jecelnahay nabad korkiina haato nabaday